madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa maanta sheegay in ay jirto baahi aad u ballaaran oo ku aadan dadka dhimirka la ee iyagu ku nool koonfur galbeed ee Soomaaliya hase yeeshee xarun weyn ama isbitaal weyn oo lagu xanaanayo dadka dhimirka la ayaa maanta waxaa si toos ah u dhagax dhigay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markaasi sheegay in ay jirto baahi aad u ballaaran oo ku aadan arrimahaasi maadaama dad aad u fara badan oo ka soo jeeda koonfur galbeed xilligan ay xaalad caafimaad ee dhanka maskaxda ay haysato ugu horeyn ayaa munaasabadii dhagax dhigga isbitaalkaasi ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaa halkaasi ka hadlay Awees Salaad Dadow oo ah madaxa ama kamid ah xubnaha ka tirsan guddiga danwadaag oo iyagu fulinaya mashruucan dhagax dhigga isbitaalka ee dhawaan lagu wado in ay yeeshaan dadka dhimirka la ee ku nool koonfur galbeed ee Soomaaliya gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose qolka dhagaxdo isbitaalka nasiida marka oo muddo in badan la hadaadiyay haddii isbitaalka armooji hoose ana kanagada magaalada Baydhabo ma ku jirtay guddiga task force bilidka guddigaas oo geemada la ku salata garay dhammaan qaybaha bulshada guddigaas oo 20 xubnood ah barnaamijka ma wadeen hal sano ibar runtii barnaamijka danwadaag iyo barnaamijka kumid ay barnaamijka danwadaag la bilidka ku dareer maylka qiimeeyay barnaamijka in ka doono qarashdan $330,000 sidoo kale gudoomiyaha maamulka ee gobolka Bay Cabdi Aadan Hoose oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay tan inay guul u tahay marka loo eego dadka ku nool gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya xilli haatan ay ka jirto baahi aad u ballaaran oo dhanka dadka iyagu waxyeelada ka soo gaartay dhanka dhimirka ah howlagi gobolka ku dareeriyo ku mid ah 1.8 milyan beesa ka dhow iyo waladii dijin ka talagalay degmadu shaleedii in la maalgeli howl muddo badan dareertiyo walaanka horeeyo unayado ku hadalaani way haytay beesada fikirka in isla sheentana beesada lay sheena fikirka uu warsada uu meelin inuu haysan si sheegan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Isaaq Cabdi Subag oo isna halkaasi hadal gaaban ka jeediyay ayaa ku amaanay guddiga danwadaag in ay wax badan ka qabteen marka loo eego howlaha haatan ay u bareereen ama ay dhabarka u rideen mas'uuliyadooda ee ku aadan dhismaha isbitaalka dadka dhimirka la siisbogdin isbitaalo kiyaala magaalo laakiin isbitaalkii hore oo dhimirka koonfur galbeed Soomaaliya oo magaalada Baydhabo targimi kan geekon madaxweynaha dhagaxan idin fadano saazartiye mayba rajayaan hadii ilaahay dad badan oo magaalada ka dhibaataysan oo waalan masaxal xanuunsan atmeelo daawo iyo daryeel iyo nay hooy badan u doonto ilaahay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay isla markaana dhagax dhigay ayaa waxa uu sheegay tan inay qayb ka tahay guulaha haatan ay gaareen dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sidaas darteedna shacabka ku nool koonfur galbeed ka codsaday in ay dowladda la shaqeeyaan isla markaana ay ku daydaan tallaabada ay qaadeen guddiga danwadaag oo haatan u bareeray howl baaxadeedu intaan la eg tahay oo ku baxaya lacag aad u fara badan madaxweynaha ayaa intaasi ku daray intii maadilaha isku maanagaana guddiga oo iska xil saaray in oo fikradu wasla u fayla inuu soo shaqeeyo oo mudana ku dhaadhiciyaan in ay gaaraan maalgashi ka suuqiyaan iyo hay'ado caalamka iyo dawlado oo kharashkaas oo dhiibo hayaan runtii idin ka maanagaan maadilaha isku leh barnaamij idin baahanayo isbitaal فرنا تسلم ما تقولون بلدينا وكونفرنس ما تقولون تيجي لنا كباهني إن دريال إلهي يسكول لكن لانك دريال الدرجة دبعتي سوسي دريال على مركب وليبا وغيره كمان مجانا تدي فكر بفعل الجلي يعني أنتم ترى لفولي أو هديرسي ميلي هدي كبرود هدي العقلي هدي وقت جلي هدي فكر جلي برونتي إيران كمان مجانا لانك استوسي كارهان هي أدو العقد بدن هذا الشيء دي العقد بدن الشيء برنامج الدولات قبل كباي كارهان تجمد بيدو كسيرة كذا كمان مجانا ESSF عاوية هاي ترونتي ويلنا مشروعي بدن كلا لمباهين ديرانيون وكسجان إنه عاوية أو الضام أولاً. tan dhagax dhigida isbitaalkan ee haatan ay fulinayaan guddiga danwadaag ayaa waxa uu ka soo beegmaya xilli haatan la dareemayo baahi aad u ballaaran in loo qabo dadka iyagu dhimirka la ee lagu arkayo qaarkood in ay ku sugan yihiin gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose
intaa kadib ayaa xarunta dadka dhimirka leh haatan lagu xanaaneeyo ee ku taalla magaalada Baydhabo waxaa gaaray xaan suxufiyiin ah kuwa oo u kurgelayay xaaladda haatan haysata dadka dhimirka la mid ka mid ah dhalinyarada iyagu dhimirka leh halkaasi aan kula kulmay ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyay su'aalo ku aadan xaaladihiisa caafimaad waxaana uu ku jawaabay دارود مجتين عمر محمود ما حقيقة ودن كنا كم dadka diintooda gatay inaan wararka leeblay oo kale niga soo tabanay ana soo tabiyo kan waxa uu joogaa inaan dadka xoreeyo ilaa hadda xoreys ma soo qaaday magaciisa taan David Cameron miyaata waa markii ugu horeysay isbitaal lagu xanaaneeyo dadka dhimirka la oo baaxadiisu intaan la eg laga fuliyo marka loo eego gobolka Baay ama gobolada Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose Xuseen Nuur Geesay telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Baydhabo